Waxaa geeriyooday Allah u naxariistay Cabdiqani Axmed Dihaal oo loo garan ogaa markaasi Dulqarnayn oo si weyn baraha bulshada caan uga waxa uuna ku dhintay magaalada Woodward oo qiyaastii 28 kiilomitir in lagu qiyaasay u jirta magaalada Laascaanood oo deegaan ahaan ka soo jeeday. Haddaba sidee ayuu u dhintay Cabdiqani Axmed Dihaal? Allah u raxmade waxa uu sababsaday dhaawac toorey oo soo gaarsiiyay nin kale oo isku deegaan yihiin ama ay hayb wadaag hoose yihiin, taas oo ugu dambeyntii u geeriyooday Ilaahay tiisi ka dhigay. Falkan oo ka mid ah sida kuwa caadiga bulshada dhexdeeda uga dhaca waxa uu ka dhacay degmada Woodward, mana aha sida dadka qaar ay u dhigayaan dil siyaasadeed ama si kale oo qarsoodiya u dhacay oo daba socda kuwii Laascaanood ka dhici jiray xilligii Somaliland ay gacanta ku haysay. Waa dhacdo xanuun badan oo qof waliba uu ka naxay, waase qoraal lama baajin karo. Alla samiri iimaan Allah ka siiyo dhammaan markaasi shacabka Soomaaliyeed, si gaar ah gobolada SSC oo ka baxay. Marxuumkan waxa uu si weyn caan uga ahaa baraha bulshada Soomaalidu dhigto, waxa uuna taariikh ahaan ku soo noolaa dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Wuxuuna markii dambe uga yimi xaalada caafimaad isagoo soo gaadhay magaalada Laascaanood, halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa. Waa nin si weyn wacyiga bulshada ula haystay, waxa uuna necbaa in dadka Oromada iyo sidoo kale dadka ajnabiga ay dalka gudihiisa siyaabo kala duwan ay u joogaan. Si gaar ah Oromada ayuu farta ugu fiiqi jiray. Waxaas nin weyn si weyn mufakir u ah. Muuqaaladiisina bal aan idin daawadsiiyo muuqaaladii ugu dhaxalka badnaa ee uu u reebay bulshada Soomaaliyeed. gabdhaha Soomaaliyeed meel xun bay isdhigeen. Waxaa arkaysaa naag mid iskala soo baxay ilkala oo aan shilin haysan. هذا ناكتو حيوان كاسمه قرصدان إلا كونديشن اسكو حران. والله بيني الشيء ما قريض وحلا ذا كلام مرخاتي إنه رادينا العرور إلى هاي ناس إنه اللي باحثوا وكل فامي اللي اسمه إلا ناكتا اسوكلادان أو كذا العين وهبيني مالين وردية كأهان. Soomaalidu waxa weeyaan laba habeen been mid arkaysa ilkala waa daba socotaa ninkii baa naag la soo qabanina shaqo hayn guri haynin waxba haynin xaguu geenaya markay iyo xaruurteen isha shirad meel la dhig hadoo iyagoo laba dhalay oo kala fool xun bay gidaarada taagay marka maxaad ka leedahay dadka unplanned children ka dhalay jawaab ka hadlaya macquul ma aha nin hal qoltiga sagaal ciyaal inuu dhalo mid kale oo cad arkaysa midaan waxba hayno kule afar baa qaba xaraan weeyaan waxyaabaha suqad inay tarantaaduna badato wax soo saarkaagina yaraado waa hoogi halaag baad ku dambeeyay waa waxa hadda ina haysta waa waxa suusaadka inuu ugu jirno waxaad arkaysaa dad hal qol degan sagaal ciyaal dhalay weligeed lama arkin adduunyada dadka iska soo toosaan maqaxiskooda fariisanaya qadadii ka tagaya soo laabanaya fariisanaya habeen barkii ka tagaya adduunka meel ka ma hadal orab soo saay wali ma aragteen afar midoo quraan joog gidaar iska fadhiya oo bilaa macna xagga noo socon ma arag sabab marka Soomaalidu maxaa fariisiyay gidaar weligeed lama arag hadal un haya hadal un Mareykanka gawar ma arkishto waxa soo weligeed shan nin oo Mareykan bilaa macna meel fadhiya ma arag shan jeelaysa ma arkin weligay ma arkin yaa baa ku maqanayba umadana iska soo wada fadhida laba boqol oo nin oo saa meel iska soo fadhida weligeed yaa kana kama sheekaysanayaan dadkii ka sheekeynayaan iblaayo ma la furay kule ma ana qabi jiray maxaa ka kala jira waxaan istupirnimo ay isweydiinayaan hadana iyo caruur ma ku dhashay xal maxaa dhacay iyo waxaan la garanayn oo baa waqtigoodii bay lumiyeen timekoodii bay lumiyeen okay halku muxuu yahay kula tahay halku waxa weeyaan inaynu gacmaha qabsano 20 jeer oo adii sheegay waxna barano waxna beerano sidaasaynu ku dharki karaynaa that's the only way dhulna waynu haysanaa awoodna waynu haysanaa soonku wax ciyaar ma aha صح soonku wax faralo ilaahay inuu ku faral yeelay aad iyo suuratul baqara waa suurada labaad ee sharciga dhan quraanka ugu horeysay buu ku jiraa soonku soonka ilaahay wuxuu ku leeyahay sidii madihii hore ayaan waajib idin ka dhigay marka haddii aad bisha soo Ramadaan aragto oo aad qofka qaangaar oo caafimaad qaba tahay waa inaad soontaa no matter what marka waan soomanahay gidaarna la dhuuban ku ciyaaray wax macquul ma aha marka don't waste your time haddaad sooman tahay yani waa inaad wax ajar leh aad ka shaqaysaa laakiin gidaar la dhuudu sideedaba xaraan u tahay
laadhuudu sideedaba xaaraan u tahay adduunka meel 4 nin oo waaweyn intay fadhiistaan laadhuu ciyaaraan ma jirto qaar soomana salaadin baa jira kuwaana ka war والله تاسنا ودنبيجي سيلا هذا تكنين لبا فرل با مني كتغي من قاتي معقول ما نبا waxa laga hayaa tuuladii baan garanayna waxa la yiri ma salaadin xad ka soobi kaas ilaahay haafka baasa isku imaameen ka nooca maxad ka leedahay taasoo kale والله waa kii yiri oo kale salaadii maxay iiga dana suulameer sooni maxay iiga dana caana subaxdiid ما أردت واسكت شكل. هذان أنت تاريخها كسيكون كجبحنا وحنا هيدد كسوق عاوم ضل فتح بيض في بيرت. وهيستوري وتاريخ وحي اللي يابكل وبعرين تاسبا. يوروبي أمريكان 3 months كليه وحبيرتان. 3 months كاس وحبيران الدنيا ضو لما يعوني كرت. إنك أنا وحوي عندل كينا لبيه تمك بلاد وحبا كبحة. لبيه قرح جوك تابين هايسنا بينا وان هايسنا. marka ma garan karo waxaan la fadhino oo beeran laan ma la isdii karaya aqoontiba yaani dadkii of course dadku waan sirxan yihiin aqoontiina way ka tagtay cala ilaahayna way ku dhacday oo dadka hadii waxyaabo badan isku misaab karayaan isku dardaraan wax badan baa ka taga marka wadad hurdo oo soo jeeda hadana ma aragto qof soconaya oo hurdo wali ma aragteen weeyaan dadkan ugu dambeyn Allah u naxariistay waxa markaas la sheegay maanta oo Jimcaha in lagu aasi doono magaalada Woodwood ama degmada Woodwood halkaas oo aas qaran loogu sameyn doono kana ay qaybgeli doonaan madaxda ugu sareysa maamulka SSC Khaatumo waxaan rajaynayaa inaad u soo duceysaan muuqaalkana si share gareysaan